Bismillah. Hallow asxaabta. Maantay waxaan idinla wadaagaynaa sheeko cajiib ah oo na barayso in aan marnababa ubadka la kala jeclaan daawo ilaa dhammaadka sheekadan. Lisa waxay dhalatay xilli ay waalidiinteeda u diyaar garoobin mas'uuliyad carruur. Waxay markaasi ka qalin jebiyeen jaamacad, shaqana ma aysan hayn. Nasiib darro waxay u arkeen dhalidda cunuga inay ku tahay caqabad weyn, taas oo ka hor istaagayso inay sii wataan waxbarashadooda. Dhib badan ayay ka soo mareen qaadiddii uurka Lisa. Waalidiinta Lisa ayaa go'aansaday in la soo xaaqo uurka Lisa, hase yeeshee awoowihii Lisa ayaa diiday arrinkaas. Waxay kula taliyeen in ay dhalaan kadibna ay kororsan doonaan. Lisa markii ay dhalatay, awowgeed iyo ayeeydeed ayaa go'aansaday in ay korsadaan. Waqti badan kadib, Lisa hooyadeed iyo aabbaheed ayaa helay shaqo wanaagsan, taas oo ay ku maareyn karaan qoyska. Lisa ayaa loo keenay waalidkeed si ay ula noolaato. Si kastaba ha ahaatee, gabadha ma aysan helin jacaylkii waalidiinteeda, taasoo cunug walba xaq u leeyahay inuu helo. Waalidkeeda ma aysan siin xanaano waalid, waxay yagleeleen ganacsi. Xaalka dhaqaale aad ayuu u fiicnaa. Waxay cunuga yar u qabteen shaqaalo xanaanayso, taas oo ay lacag ku siin jireen. Haddaba waalidkii waxay waqtigooda in badan geliyeen shaqada. Si kastaba ha ahaatee, markii ay Lisa gaartay 5 sano, hooyadeed ayaa uur kala qaaday mar kale, laakiin uurkan waa mid loo diyaar garoobay. Waalidiinta aad ayay ugu farxeen niyuuska uurka. Waxay labadoodaba isku diyaariyeen soo dhoweynta ilmaha yar ee uurka ku jiro. Waxaa dhashay gabar. Qoyskii dhan aad ayay u farxeen. Gabadhiina waxaa loo bixiyey Farnuka. Aad ayaa loo jeclaa Farnuka. Nasiib darro, Farnuka ma aysan arkin awoowaheed iyo ayeeydeed. Waxay dhinteen inta aysan dhalan ka hor. Lisa way aragtay xaalka. Waxay ka yaabtay sida walaasheed ka yar loo jecel yahay, loona siiyo wax walba, iyadana loo inkiray. Laakiin Lisa haba yaraatee aad ayay wax walba u fahmaysay, waxayna ahayd cunug isku tiirsan. Lisa aad ayay uga xumaatay sababtoo ah maysan helin jacayl dhab ah, kaas oo ay waalidkeed bas siin kareen. Sanado badan kadib, Lisa waxay ka qalin jebisay dugsiga sare. Waxay isku diyaarisay dabaaldegii ardayda ee sanadlaha ahaa. Gabadhii waxay u timid waalidkeed waxayna weydiisatay in loo gado dhar si ay uga qayb gasho xafladda iskuulka. Waxay siiyeen lacag yar, iyagoo aad u canaantay, kuna yidhi, maad adiga wax gadatid, maxaad mar walba lacag noo weydiisaa? Liso hadalkaas uma aysan bixin, waxayna tiri, hala ii gada wax wanaagsan. Subaxii dambe, Lisa oo u socota suuqa si ay ugu soo gadato dhar, ayaa waxa ay suuqa ku aragtay waalidkeed iyo walaasheed. Waxay gabadha yar u gadeen dhar aad qaali u ah. Lisa waxay soo aaday dhinacooda, hase yeeshee ma aysan qiimeyn gabadha. Lisa markay xaafadda ku soo laabatay, aad ayay u ooyday, sababtoo ah waxay dareentay in waalidkeed ay aad u neceb yihiin, laakiin iyada weli way jeceshahay waalidkeed. Waxay mar uun is leedahay waalidka wuu ku jeclaan doonaa. Xiriirkii labada gabdhood ma uusan fiicnayn, waayo mar walba qaladka ay samayso Farnuka waxay ku nabtaa Lisa. Waalidka ayaa mar walba ciqaabo Lisa, iyagoo ku ciqaaba qalad aysan gelin. Lisa waxay noqotay in keligeed ay isku tashato, halka Farnuka ay noqotay mid kibir badan, waalidkeedna u dhaga adag. Lisa ayaa qalin jebisay iyadoo heshay waxbarasho free ah, kana heshay jaamacad ku taalla magaalo kale. Waxaa kaloo laga bixiyey guriga iyo cuntada. Waalidkeed waxay awoodeen
inay ka bixiyaan jaamacad ka fiican miday heshay una kireeyaan guri fiican, laakiin ma aysan rabin. Lisa ayaa timid guriga si ay u soo qaadato alaabteeda ogana ambabaxdo, laakiin nasiib darro, waalidkeed iyo walaasheed ma aysan xataa qiimeyn bixitaankeeda, mana jirin cid sagootisay. Maalmo kadib, hooyadeed ayaa soo wacday si ay u weydiiso meesha ay joogto. Waxay ku jawaabtay, hooyo, soo maana kuu sheegin inaan u socdo magaalo kale si aan college uga barto. Hooyadeed ayaa ku jawaabtay, maadaama aadan nala noolayn qolkaada, shaqaalaha ma siin karaa. Lisa waxay ogaatay inay meesha qol ku lahayn, waxayna tiri, hooyo, samee wixii aad rabto, aad ayaan kuu jeclahay. 5 sano kadib, Farnuka ayaa dhammaysay dugsiga sare. Waalidkii waxay go'aansadeen inay u qabtaan macallimiin fiican si ay ugu baasto jaamacadaha ugu qaalisan dalka. Lacag badan ayay ku bixiyeen si looga aqbalo jaamacadaha ugu tayada badan waddanka. Kadib markii Lisa ay ka tagtay guriga, waalidkeed ma aysan arkin mar dhow. Mar iyo laba ayay aadaa guriga, laakiin cidna ma aysan sugayn gabadha. Mararka qaarna cidna ma joogin xaafadda. Ugu dambeyn, Lisa way qalin jebisay, waxayna ka mid noqotay ardaydii ugu fiicnayd. Isla markiiba qalin jebinteedii kadib, waxay heshay shaqo fiican. Lisa waxay ogaatay in dadaalkeedii badnaa uu miro dhalay. Lisa ayaa hadda noqotay mid ka mid ah tiim si gooni ah loo diyaariyey, kuwaasoo u safra waddamada kale ee caalamka si ay u suuq geliyaan badeecadooda iyo adeegga shirkadda. Tiimkan ayaa lacag fiican qaato. Nolosha gabadha aad ayay u wanaagsanaatay, inkastoo xiriir fiican aysan la lahayn qaraabada iyo qoyskeeda. Xoogaa kadib, Lisa ayaa heshay akhbaar ah in reerkeedii ay nolosha ku adkaatay, wajahayaan xaalad adag. Waalidkeed ayaa isku dayayay inay ka badbaadaan iibinta qaar ka mid ah hantidooda si ay ganacsigooda u badbaadiyaan. Lisa ayaa arrinkan ka ogaatay hooyadeed. Gabadha ayaa aad ugu faraxday wicitaanka hooyo. Hooyadeed xataa ma aysan weydiin xaalka gabadheeda Lisa, maadaama ay istiri Lisa waxay u baahan tahay lacag si degdeg ah. Shirkaddiina way baaba'day, waxayna qarka u saaran tahay inaan xaraashno dhammaan agabkeena si iida gaariyaasha iyo guryaheena. Fadlan na badbaadi. Lisa way ku faraxday codka hooyadeed inay maqasho. Waxay aaday bangiga ugu dhowaa, waxayna u dirtay lacag aad u badan. Maalinkii ku xigtay, waxay wacday ciddii si ay u ogaato xaaladda meesha ay marayso iyo inay lacagtii heleen iyo in kale. Hase yeeshee, cidna uma soo jawaabin. Isbuuc kadib, aabbaheed ayaa soo wacay, isagoo u baahan lacag badan. Wuxuu sheegay lacagtii ay soo dirtay inaysan ku filnayn baahida jirto. Lisa ayaa tiri, haye aabe, waan soo diri lacag kale. Lisa waxay go'aansatay inay u dirto dhammaan lacagtii ay seef-garaynaysay, maadaama waalidkeed u baahan yihiin maanta. Lisa ayaa waxay isku dayday inay la xiriirto qof jooga cidda si ay warbixin dheeraad ah u hesho. Isla markiiba waxay social media ka aragtay walaasheed Farnuka sawiradeeda oo aad u qurux badan. Aabbaheed oo ag taagan gaarigii uu ku yiri wuu gaday dhaqaale xumo awgiis, iyo hooyadeed oo la fadhida walaasheed, kuwaasoo fadhiyo maqaayadaha ugu qaalisan waddanka. Sawiradan oo dhan way cusub yihiin, markaas ayaana la soo dhigay oo gabadha ay lacagta dirtay. Way aamini weyday in waalidkeed uu saan oo dhan u khiyaanay, laakiin waxay ugu dambeyn go'aansatay inaysan lacag dambe u dirin sababtoo ah uma aysan baahnayn wax lacag ah. Lisa hooyadeed ayaa soo wacday, hase yeeshee Lisa waxay tiri dambo lacag ma soo diraayi. Hooyadeed ayaa tiri, sideed saan oo dhan noogu samayn kartaa? Soo waalidiintaada ma nihin. Lisa teelka ayay damisay, laakiin waxay dareentay waxaan fiicnayn maadaama aysan caawin karin. Laakiin dhanka kale, waxay dareentay inay wax fiican samaysay.
Lisa nambarkeedii ayay beddeshay si aysan erayo xun uga maqal familkeeda. In yar kadib, qoyskii Lisa ayaa gaday dhammaan hantidii ay haysteen si ay u badbaadiyaan ganacsigooda, laakiin kuma aysan guulaysan oo ganacsigii iyo wax walba ay haysteen way waayeen. Hadda waxay ku nool yihiin guri yar oo ay kireystaan. Arrinkan ayaa dhacay iyadoo gabadhooda yar aysan weli dhammaysan jaamacaddeedii, laakiin xaalka waa uu ka fiicnaan lahaa sidan haddii ay ka fakari lahaayeen gabadhoodii Lisa. Lisa waxay aqbashay inaysan weligeed jeclaan, waxayna go'aansatay inay joojiso xiriirka qoyskooda, mar dambana aysan la xiriirin, laakiin weli qalbiga ayay ka jeceshahay qoyskeeda. Sheekadan waxayna baraysaa in ubadkaada isku si u jeclaato oo aadan marnaba kala xigsan. Farnika oo heshay jacaylka waalidiinta iyo weliba wax kasto, iminka qoyska ayay la nooshahay, jaamacaddiina ma aysan dhammaan oo noloshii way ku faylgarowday, halka Lisa ay noqotay xidigad qiimo weyn leh, hanti badanna samaysay, noqotayna qof isku filan.